inqilaab lagu qabtay magaaladii afarta geesaa laga xiray dadkii aan soo wada safnay marka ciidankan kumaandoosta u daata guryaha loogu galaa qaarkood ayagoo gudad ku jiro gudadka lagala soo baxa mararka qaar ayagoo qaylaha nimanka saa u malaysiin maahano nimanku saas wada geesiyaal saas uma wada ah markay baabuurta isku soo xiraan bisay ummadda qarxiya qaanin maahane ma naf badan taargeday annaga noo tahay micnaha waxbaan ka raadihaynaa ma ahan micnaheeda marka inaan magaalada qabsadana waxaa ka u dhabar jab adag ayaga in magaalada intaan qabanno dadkii ugu muhiimsanaa oo indhaha u ahay aan ka soo qabsan waa nooc loogu talagalay nimankan in lagu argagax geliyo magaaladaas marka intaan la aadin ka horna inta qofoo ku nool waxaa lagu daraa qorshaha dagaalka lagu daraa magaaladaas marka waa la arbushaa waa la dhibaateeyaa wixii ku jirana waa la soo qabtaa hal xaba lagama soo tago laakiin ayagoona ogeyn ayaa lagu sameeyaa ciidankan danabna aaday uga naxaan markay meeshay ku arkaan maxaa yeelay ayaga dadka ayagaa gaado shabaabta sidooda dadka waa gaadaan kuwa magaalada jooga iyo kuwa baadiyaha joogaba oo jabhadaha ah iyo kuwa amniga ahba oo magaalada ikhtiyaalaadka ku oo bistooladaha ku hubaysa labadoodaba shaqadooda sidoodaba gaadmo waay haddii marka ayaga gaado aaday u necab yihiin ma jecla marka ciidankan danab waxay ku necab yihiin waxaa waaye waxaa laga yaabaa inuu maantoo kale meeshaan iskaga shaaxayhayo magaalada iskaga fadhiyeen caawadoo kale iska fadhiyaan sablaale ama kuntuwaare iska fadhiyaan hal mar dushooda ay ka arkaan ayadoo la taagan yahay maanta waxba dhowran maaya bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sala allahu alayhi wasalam waa mahadsantiin idaacadda ciidamada qalabka sida saa og tahay dalka dhan waxaa ka socda howlgallo ballaaran oo ay fulinayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidankan danab wuxuu ka mid yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgalladaasna ayagana qayb weyn ayay ka yihiin oo waxaan dhihi karnaaba laf dhabar ayagaa u ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaad saaran waajibaad weyn oo ay ka mid tahay inay difaacaan dalka dadka iyo diinta ilaalinta state iyo dawladnimada qaybtaasna qaybay ka yihiin ciidankan danabna hadda si gaar ah sii sharaxo waxa ay si toos u hoos tagaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo asigay ka amar qaataan wixii awaamir iyo wixii waajibaadana halkaas ayaa loo soo marsiyaa howlgalladana sidaas ay ku galaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin sharaxaadooda guud markii aan ka hadlo howlgalladan hadda socdana qayb ayay ka yihiin waliba waa qaybaha ugu muhiimsan ayaga ayaa qabta for example haddii ay noqoto in magaalo la weeraro kale cadowga la rabo in laga sifeeyo sida hadda qorshihii buundooyinka howlgalkii badbaado oo buundooyinka lagu qabanayay ka bilaabo Sabiibi Caanole Bariire Owdiigle ilaa Jannaale oo ugu dambeysay qabashada ayaga iska lahay oo waxa loogu talagalay awoodda koowaad oo marka koowaad face garaynaysa cadowga oo ka hortagay inay ayaga noqdaan markay ayaga burburiyaan oo ay islaaxiyaan oo ay dhan walba ka nadiifiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtiisa kale ee loogu talagalay inay deegaan ka noqoto dhulkaas ama joogto ayaa waajibaadka la wareegaysa ciidankan kalena uu sii soconaya oo danab oo commandos tali aad u mahadsan tahay danab ciidanka commandos danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed inta badan waxay fuliyaan marka laga yimaado howlgallo qorshaysan baa jira oo ay fuliyaan ciidanka howlgalladaas waa mahadsan tahay waa jiraan howlgalladaas qorshaysan howlgalladan horta ciidamada danab ay fuliyaan waa laba nooc waa nooc loogu talagalay nimankan in lagu argagax geliyo for example ayaga waxay sameeyeen saa ognahay magaalada Muqdisho kale waddo ama dad shacab meel iska joogaan baawur qarax inta keenan ay ku qarxiyaan dadka shacabkii meesha joogay waxay ku ridaan wadna kurkur naxtin hooyo masaakiin wax iska gadahaysay ku laayaan dadkay ku xasuuqaan dhibaatooyinkaasi ugu geystaan dadkina meeshii qoladii qarax oo ku dhaca maahan dadka kale oo aana joogin argagaxa ku dhaca meel walba ay joogaan marka howlgallada qaar waa howlgallo ayaga lagu argagax geliyo oo for example waxa lagu sameeyaa waxa lagu target gareystaa nimankooda ugu sareeyo madaxda ah ayagoo ilmahooda la jooga ama guryahooda jooga ama magaalooyinka ay haystaan kamid ah loo daata ciidankan commandos u daata guryaha loogu galaa qaarkood ayagoo gudad ku jiro gudadka lagala soo baxa mararka qaar ayagoo qaylaha
nimanka saa u malaysiin maahano nimanku saas wada geesiyaal saas uma wada ah markay baabuurta isku soo xiraan bisay ummadda qarxi yaqaanin maahane ma naf badno argagaxaasna kaasaa loogu talagalay oo shakhsiyaadka lagu abbaartaa for example mas-uuliyaadkooda wiilashan yarkaa la soo diraa maahane nimanka xukuma ayaga meelaha ay degan yihiin guryaha ay ku jiraan ama jilib ha ahaata ama jamaama ha ahaata ama bu'aala ha ahaata ama meel walba micnaha magaalo walba ay joogaan meel uusan ciidankan commandoosta uusan tegi karin ay ku nabadgelayaan haddii xogteeda la helo ma jirto marka shaqadaas waa qayb ka mid ah ay qabtaan shaqo kale oo ayadan ay qabtaan waxaa ka mid ah for example ayadoona target ay magaalo ay haystaan oo kale in magaalo dhan la qabtaan mar oo saa hore u aragteen magaaladaas la qabaha marka waxaa loogu talagalay markaas wixii ku jira markaas in lagu dhex qabto for example kuwa lacagaha dadka sharci darrada uga qaada kuwa maxkamadaha beebeenta isku sheega oo ummadda ku dhibaateeya oo dhaho maxkamadaan nahay oo qofka sharci darrada ah wax uga xukuma ama ku xukuma ama kuwa wilaayaadka ay dhahaan oo madaxda u ah wilaayaadka ah ama kuwa mutafajiraadka oo qaraxyada qaabilsan guryaha ay ku leeyihiin saldhigyadaas loogu talagalay ayadan in lagula wareego magaalada dhan magaaladaas marka waa la arbushaa waa la dhibaateeyaa wixii ku jirana waa la soo qabtaa hal xaba lagama soo tago laakiin ayagoona ogeyn ayaa lagu sameeyaa marka marar qaar waxyaabaha ay u necib yihiin ciidankan danab waxaa ka mid ah sababahaas maxaa yeele adiga waxaa iska ilaalin kartaa qofka maruu kugu soo socdaa ogtaa mogta laakiin annaga ciidankeenna waqtina ma laha gooray baxayaanna qof og ma laha meelay ka gelayaanna qof ma laha ayagoo la dul taagan yahay un ay arkaan marar qaar inay cararaana isku dayaan orodna meel ku tagayaan oo rag odayaalay u badan yihiin marar qaar waxay iska dhigaan inay dadka dhex galaan dadkina uma dhex arka qisa hadda qisooyin ka mid ah waxaa jiray hadda ka hor magaalo aan qaban magaaladaas kidisa ku galan magaalada markaas sidii kidiska ku galanay inqilaabaa lagu qabtay magaaladii 4 geesaa laga xiray dadkii aan soo wada safnay dadka markaa soo wada safnay waa la sii kala saaraa dadka marka la kala qabto waxaa dhacda marka 4 nin isku soo haray marka nin xoogaa cayilan hilib lahaa ku jiro hooyo marka islaan duq oo waayeel xagga kala maraysaa waxay tiri ayadoo way shakis ima la diir rabay gorba istin ninka anagana waa dareensanayn inuu nimankii yahay man dhow waxay tiri kaas ha sii deynay tirkii xoolaha naga dhameeyo waaye marka fartay ku soo fiiq ayadoo duq waayeel ah macnaha wuxuu u geystaa dareemaysaa ma ogta inuu xoolihii ka xaalufiyo oo ummadda dhibaateeyo sidaas ayagana lagu soo wadaa xoog kale lagu raadiyaa kala lagu abuuraa shaqadaas labaadna way qabtaan oo burburinta waxaad ka warbixisay in magaalooyinka qorshayaasha iyo lagu qabto marka aad tagtaan sida qisadan oo kale taariikho ama goobaha aad tagtaan shacabka ku dhaqan marka la kulantaan dareen noocyo kala duwan wallahi horta dadka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dad dawladnimada raba waay ama meel shabaab haysta ahaata ama meel oona hiisana ahaato dadka dawladnimada way rabaan oo dawladnimadana gaarin for example marka qaar way ku weydiinayaan ciidanka مسي جوجي دونتين مسوا بيح دونتين سؤالها ugu badan ay na weydiiyaan fahmayso daadis waa hadda qorshihi dhamaay oo howlgallada loo bedelay oo dawladdu u bedeshay oo dhul hadii la qabana ciidanka qabalahayn waa inuu socdo oo taliyaha xoogga oo hogaamina oo mar walba dejiyo qorshahooda oo u diyaariyo ciidanka meesha digi lahay ana meel la iska tagin ilaa meesha dadka digi lahay la sameeyo howlgalladan anaga aan fulin waa qorshe gaar ah laga leeyahay oo maanta kale bu'aala inaan tagno ama aan tagna meesha la yiraahdo Carabow oo 50 kiiloomitir u jirta bu'aala aan u daadano taargeday anaga noo taamicna waxbaan ka raadiyayna ma ahan micnaheedu markii inaan magaalada qabsadana waxa ka u dhabar jab adag ayaga in magaalada intaan qabana dadkii ugu muhiimsanaa oo indhaha u ahay aan ka soo qabsan qorshahaas waaye laakiin qorshaha xoogga dalka Soomaaliyeed u degan waa in dhulkii la tago si loo tago aan dib dambe looga soo laabo qorshahaasna taliyaha xoogga awaamirtiisa iskala asigaan ka suugeynaa meelaha xiga ee la qabaha أصلاً نسوها يا دولي. كل هذا ما صنته هاي. واحد شراء مركز عن ميل وشوتان. أرجع حسده كور هنا أما يسعون وكيا عن ديجان هذا. واحد صار هذا اللي صار عن كلام كديجان أي عيد كماندس كدنا كسعودان. أي مقلان دنا كماندس عن كسر ديجان. وكسي عن كل. سوى أرتهم كسرهم. ها يا عتانك وحكينا نمن كان نرتني من أو سكة فول كفولة ضد قدر الرمى. أو برسامر إن ضدك قفك سواق قادان أو ay soo arooriyaan oo gaari qaraxa ay soo arursadaan oo kadib ay qofka ay la soo aadaan magaaladii ama xeerada ciidanka oo jooga maahan fool markay imaato dagaal toos sidoo ma jecla ciidankan danabna aaday uga naxaan markay meesha ku arkaan maxaa yeelay waxay ayaga dadka ayaga gaado shabaab sidoo dadka waa gaadaan kuwa magaalada jooga iyo kuwa baadiyaha jooga oo jabhadaha ah
iyo kuwa amniga ahba oo magaalada ikhtiyaalaadka ku oo bisooladaha ku hubaysa labadoodaba shaqadooda sidoodaba gaadmo waay haddii marka ayaga aag gaado aad u necab yihiin ma jecla marka ciidankan dan waxay ku necab yihiin waxaa waaye waxaa laga yaabaa inuu maantoo kale meeshaan iskaga shaaxayhayo magaalada iskaga fadhiyeen cawadoo kale iska fadhiyaan sablaale ama kuntuwaare iska fadhiyaan hal mar dushooda ay ka arkaan ayadoo la taagan yahay ninkiina uusan filahayn hujuum xoog oo xoogga dalka Soomaaliyeed oo soo socdana uusan maqal magaaladii oo xiran nimankiina waana dul taagan yihiin sababta marka waxaa keenay ayadoona anagoona xataa ku socon mararka qaar inay iska kala cararaan waxaa keenaysa magacaas danab ka cararaan taasaa sabab u ah waxaa jira marka deegaan la wareegtaan oo kale dadka shacabka ah waxaa inta badan la arkay idinko caawimaya dadka shacabka bal shaqadaas iyo ujeedka aad ka dambeeyay qorshaha horta dadka in la caawiyo ka dambeeyay waxaa waaye dadka horta marka loo tagaa oo magaalooyinka la qabana dadka dhulkan howlgallada hadda badan laga fuliyo dhulkan beeraleyda waaye dadka dad iska beeraley waaye dadka waa la dhibaateeyay aad loo dhibaateeyay xoolihi laga qaatay nimankan waxaa waaye heer baash waxay gaarsiiyeen maamada masaakiinta oo beerta falahe inay lacag dul dhigaan xoolihi sidoo kale dadkii oo dhan way dhibaataysan yihiin marka xoolana ma haystaan agabna ugama soo baxo beerihii waa ku dhiban yihiin dadkii markaa dul tagta marka qayb annaga waxaan leenahay oo samig la yidhaaho arrimaha bulshada ah oo qaabilsan inay dadka raashinka siiso raashinkeena u qaadnaa raashinkaa meesha loo dejiyaa magaaladaas marka intaan la aadin ka horna inta qofoo ku nool waxaa lagu daraa qorshaha dagaalka lagu daraa taliyaha xoogga qorsheeya kadib tiradooda iyo waxooda riboodkooda saas nagula siiyaa qorshe guud oo taliyaha oo soo dejiyana waaye saasaa lagu siiyaa raashinka iyo wax allaale wixii markaas lahaaya dadkaas masaakiintaana saasaa lagu badbaadiyaa oo wax lagu siiyaa oo lagu gaarsiiyaa guryahooda loogu geeyaa ayagana wax weyn ay u tartaa oo waxay dareemayaan dadkii dowladnimada inay soo gaartay waxaan hadda ay ku dul nool yihiin way ku qasban yihiin maahan wax ay rabaan ayaga oo rabitaankooda ah ma ahan oo dadku waa qasban yihiin dad qasban waay